waxaad nooga sheekaysaa qaabkii waayadii hore loo xallin jiray khilaafaadka ama isku dhacyada sidee xaajada loo goon jiray si kale haddii aan u dhigo horta wax qoraal ma ahe waxay abba laga soo gaara awba laga soo gaara waxaana la ninkii aabihiisa soo gaaray awgiis waa arkaan dhacnaa oo sheekal kala guurin waayo marka arrimaha odayaalkood waa aad baa loo kala sooraan jiray oo geed baa la fadhiisin jiray oo gartaa la qaadi jiray garta markii la qaadayo waxaa lagu noqonayo dib loogu noqonayo waxaa waaye intaan ishaysato dhexdeeda maxaa ka dhaci jira lagu noqdaa hadday waxay daqar yihiin oo dhaawac u yihiin haddii wax dhinta yihiin haddii wax kale yihiin waxay dhanba mid ugu horreysa waxaa laga bilaaba wax sabeen la yidhaah sabeenta maxay tahay qofkaana fahmaynin sabeenta waxaa waaye waxaa la yidhaha raalli ahaada horta dadkii waxa laga hadleeyaa la yidhahda raalli ahaada waxaan inta wax lagu tashti maaha wax saas u dhacay waaye waxaan waan ka raalli ahaada la dhaha marka sabeen baa la xiraa labay u kala baxdaa waxay dhahaan tabsi iyo tawxiid ay dhahaan tawxiid waxaa waaye sabeen ayaa naga qaadaa la dhahaa oo dadkiina waa qancayn midna waxaa waaye hoogo yar baa la bixiya oon badneen marka taasba horta waad maraysaa marka horeysa horta taasa lagu bilaaba sidii soomaalidu u badan tahay sabeentani magac unbaa sabeen laga leeyahay mooyaane sabeen waxaa looga soo qaatay ma aqaani sabeen unbaa la yidhaahdaa oo heshiiskan raalli ahaadadaas yaa magaca loo bixi ay tahay raalli ahaadadaas sabeen loo bixi waxa dhibkaadun baad sheegani adig shaqo kuma lihid odayaalkii markanid yaa la yidhaha raalli ahaada adigana waxaa ninkii waxa gaarin waxaa la yidhaha adigana raalli ahaaw marka adi ma dooranaysid waxa yaalla waaye oo go-on oo la og yahay hadduu qof dhinti saas waaye haddii wax laisku haysto dhul yihiin saas waaye haddii qof dhib gaare oo yani oo la dhaqray ama wax gaaren saas waaye haddii gabirna farxunay ay tahay saas waaye waa la yaqaana hadal ma reebtaa la dhaha marka wax baa qaboojisaa la dhahaa oo dadkii ninkii dhibka gaarin waa qaboobay dadkii dhirifkana qabooba la dhahaa war badan baa la dhaafsanaa markii la qabo ka damba marka arrinta la furaa sida u badanta guriga qofkaa la tagaa sida ay u badan tahay saasaa la yeela haddii oo odayaal ku heshiiyaan oo hoos un la tagana waa sidaas haddii kalena aad waxay u fiican tahay marka qofka gurigiisa la taga qofka dhibka gaaray waxaa ka hadlaysay laba sabeenta la xirayo iyo wax kalo yaroo la bixinayo waxaan kale yar muxuu yahay ha markii raalli ahaada la dhaho marmar hobo lacagaa la bixiyaa haye wax intee dhan intii aad usoo joogtay mise waktiga aad soo caqlisay eed arki jirtay odayaasha garta goynaya waxa yaree la bixin jiray wax intee dhan buu ahaa weligeed ma badneen hadda naftigeeda ninkii dhintada 5,000 joogta oo 1,000 2,000 waxyaalahan markaasi adiga waxay saas u weyn maaha marka in anigii la ii gafay ama reerkayga loo gafay uu qofku yidhaahdo raalli noqo iyo inuu wax yar isiiyo isku mid may ahayd isku mid way hataa madanayd waxba la bixinaynin baa hadda lasii jecel yahay maxaa waaye tawxiid waa magac weyn ay leedahay marka odayaasha garta goynaya miya i dhahaya qofkan wuu kuu gafay qaladkina wuu qirtay ka raalli noqo maske qofkii ii gafayaa odhanaya iga raalli noqo odayaalka saas ku dhahay marka odayaalka baxan ka damba isigii haddana ku dhaha haddana qofka salaana la dhaha marka dhaxdooda marka waa qofkii raalli hawdhe gacantaada na gaarto raalli hawdhe isababaa la dhaha qaabkii raalligelinta loo bixin jiray iyo waxa yareed ka hadlaysoon badnayn farqi ma u dhexeeya marka la eego qaladka dhacay dembiga la geystay tusaale aniga haddii aan ku caayo kale horta sabeen xir miyaa la iga baahnaa hadalkii meesha kuma dhamaanay waxay waa la qaboobaa la dhaha marka hadalkii markaasaa la bilaaba ninkan dhibkiisa intuu gaaray oo yani dhibka gaari meeqa waay macaay keliya mase gacanaa gaartay dhaqarkiisa intee gaarsiin yahay markaasaa loo fadhiisana marka xal laga gaara qof oo kalean caayay nasabkiisaan wax ka sheegay sabeen xirka wax intee dhan buu ahaa waxa sida aan kuu sheegay waa 1,000 shilin iyo waxaas saas waay 2,000 shilin wax badan maaha gabar la faruxumeeyo oo kale way kasii weyn tahay aan filaya mise waa isku mid wax weyn kama badan ninkii dhintay waa 5,000 oo kale la bixiyaa wax saas u badan maaha arrintan waxaa la rabaa un hadalkan lagu furun baa la rabaa hadalka lagu fura sabinta lagu yeey dadka lagu qaboojina la hadalka lagu fura waxa ka hadashay horta in garta intaana la gudagelin bo ama arrintii dhacday aan la xalinin ciddii wax u gaftay laga rabay inay cidda kale sabeen xir ay samayso oo ay raali geliso taasi waan isla fahanay marka siyaabahan iyageed ka hadlayso ma jiraan qaar ka mid ah ama wax iska bedelay intaad adiga ugaasyada ka mid noqotay mise xilliga aad soo caqlisay ilaa ay hadda weli way jiraan oo waa lagu dhaqmaa arrintaani aad baa loogu dhaqmaa markii anigan caruur ahaa iyo inta dhexdooda aniga nin oday weynaan ahay marka waa lagu dhaqmaa oo aad baa loogu dhaqmaa ilaa hadda waa lagu dhaqmaa laakiin qiimihii wax mi iska bedelay haddii kolka hore 1,000 shilin la bixin jiray maadaama hadda maciishada ay sare usii kacday qiimihii ma kordhay oo suuragal ma tahay hadda in 50,000 la iska qaado wax bas kama bedelin maxaa yeelay waxaan wax dheeb laga raadinayo maaha waxaa la leeyahay un labadii oo ninkii dadkii caraysamay cadhadoo lagu damina oo unbaa la dhaha wax hadda yani xoolo la kala qaadanayo maaha garta markaasaa la galaa ninka haddii wax laga qaadayo markaas waa ka dambay noqonay laakiin madan waxaa waaye un hogo yar marka odayaalka meesha joogaan un bii loogu soo gadaa wax saas oo kale waaye sabeen xirka marka anigaa la raaligelinayaa la ii gafay anigii miyaa la isiinayaa mise tolkayga yaa la sabeen xirayaa marka ugu horreysa intaanan xalka aan la gaarin adigii oo dhan ku gaariyo intii kula xumaadi mogtaadi markii ku gaar dad baa kula xumaana mal ilmadeertii xumaani dad baa hataa ilmadeer aan ahayn oo dhibkan lagu geesi arka isku xumaana dadkaas kulliya
sidaas lagu qaboojina habkan lagu qaboojina ma inoo furnayd inaan dhahno raaligelintan kumaanan qancin raalli ma nihin ma inoo furnayd maya kuma furno maxaa yeelay arrintaada waa la gala dadki ku gaari waa la fiirina oo adig meesha laguma dhaafay mogta marka maadaama xal raadis aad tahay waa ku qasban tahay maxaa yeelay waa la dejina adiga la dejina markaas la bilaabo waa la gala marka adiga waa ku qasban tahay waa la isabeen xiray sheekadii waa la furay ama hadalka waa la bilaabay qaab sidee u dhici jirta horta in xaajada la qaado oo la rogrogo oo xal laga gaaro maxaa la samayn jiray horta halkay ka bilaaban jirtay marxaladihii la mari jiray yaa qayb ka ahaa waxyaabahan haddaad noo sharaxdo markii ugaasiina masme odayaal wax garad ee isku imaadeen mar isu imaadaan oo sabeyntan saan u dhamaad kadib waxaa laleeyahay labadan cidood daqar sidan oo kale ama caay sidan oo kale ama dil lis dilay ama waxa laisku haysto maxaa dhexdooda yaallaa laleeyahay hadda ka hor maxaa ka dhacay intaas maxaa ka dhacay yaa xasuusana laleeyahay nin baa dhaha marka aniga berigaasaan xasuusanaay sidana dhacday sidana lagu xalli lagama leexanayo sidii waa lagu xallina haddii uun ugub tahay ugubaa la dhahaa haddii weligeeda cidan dhexdooda waxba ka dhacina maanta la dhigana marka waxay heer ah oo hadda kadamba lagu socon doono haddaa la dhigana waxay maanta la kala qaato oo ama qofkii la daaweeyo ama dhiigii la kala qaato ama ha badnaato ama ha yaraato marka kadamba hadda kadamba cidan masana u taallaa la dhaha haddaad noo kala qaado arrinta markay ugub tahay ama hor leedahay iyo markii qofkan isaga uu horey qalad u geystay farqiga uu dhexeeyey iyo mid walba culayskii uu lahaa ama sidee u fududayd khaladku ninkaas galay mar labaad ma aha yani ciddaan ninkan mogta cidaas ka dhashee haya waxaan ku xallinaana waa cidaa fadhiida oo odayaal labada dhinaca su hor imaadeen marka waxaa laleeyahay ciddaani reer fulan reer kansac ciddaanka reer qurac inta ka hor dhexdooda wax sidaan ma ka dhaceen yaa laleeyahay waxay ka dhacay maxaa lagu xalli saana lagu xalli sidaa lagu xallina haddii marka berigaan nis cafis ubaa ayaa haddana la gala laakiin qaladkooda hadduu badan yahay mar labaad mar saddexaad ay dad u gafeen arrinta ma weyneyd arrinta haddii hadda boqolkood hadduu u gafo waxay alla waxay mar hor lagu xallin jirin baa lagu xallina laakiin sidaa sheegtay waxaan ma qornayn oo diiwaan oo qoran ma jirin marka reerka ani aan ka dhashay haddii qaladka ay geysteen aynan qornayn oo la hilmaamay maxaa la samayn jiray ugubaalna hadda la bilaaba maanta la bilaaba haddii la hilmaamay oo inta odayaal meesha isugu imaadeen lis wareystay oo arrinta haday weyn tahay hadda la wareysana sablocation oo kale meelaha kale fogfoga la wareysana sidaas mandheera oo kale taaga waxaad ma ka warqabtiin baa la dhahaa meel ma ka warqabtiin baa la dhahaa waa lis wareysana maya waxaan ugu waa la dhahaa markaas la bilaaba haddii qof waxa soo sheegana tiya markanayt shahaado loo raadina tiya lagu maamula marka ma odayaasha meesha fadhiya xasuustooda lagu qiimeyn jiray mise dadkaa la dhex kici jiray oo la wareysan jiray xasuustu dadku meesha fadhiya markii laga waayo dibaa loo noqonaa oo muddadoo yar baa la qabsanaa waxaa lagu noqonaa marka si dadkii odayaalkii oo caanka ama waayeliinta ahay oo wax maamuli jireen oo meelaha kala degan ayaa la wareysanaa muddo intee dhan ay qaadan jirtay dhibaato dhacda in la xalliyo dhibaatada awal hore hadda waktiyaalkan hoo yaa dadka mashquuliin awal hore iyow waa la xallin jiray waxay dhacay iyow waa la xallina haddii iyow la xallinin boogtaas waa weynanayaa la dhihi jiray oo waa la xallina iyow baa la xallina sidee arrinta jirta loo gorfayn jiray oo talada loo rogrogi jiray intaanan odayaasha aynan go'aan soo saarin horta maxaa shuruudoo jiray adiga qof weyn baa tahay tusaale waxaa la rabaa reerkan inaad adigoo matelaya aad garta qayb ka noqoto shaksi ahaan maxaa la iga eegi jiray horta intaanan yani arrin aanan la ii xil saarin adig dhibaad aad geysatay dadkii aad geysatay oo la raadiyo oo aad ka dhalatay wax dhibaatadaas oo laga arkin hadda lagu bilaaba dhibkan maxasdan yaha la dhahaa hadduu dhaawacaya isbitaalkaa lagu geynaa hadduu kale marka waxa la yidhaahdo shafshafe la yidhaahdo hoolaa lagu qalaa neef ariya la qalaa mageela markii waxay dhibkaas dhamaysata kadamba oad baasatan hadday laf tahayna laftii la kaba kadib markaas kadamba haddana wax bugulbax la yidhaah oo yaa haddana yaa ama neef geele ama wax geel u dhigmo ayaa ninka lagu baanina saasa marka qofka dhaawac bixi saasa loo baanina haddii wax dhinta yihiin horta siday u badan tahay soomaalida boqol ay kala qaadataa laakiin waxaad arkaysaa reer aan kala qaadinaynin oo hoogo yar un adiga 30 neef 20 neef kala qaadanana waa la arkaa laakiin soomaalida u badan tahay boqolkaa la kala qaataa qof hadduu dhinto ama konton waxaa ula jeedaa tusaale nidaamka hadda jira markaan eegno qofka intuunan garsooro noqonin waa inuu tacliin uu soo qaato waxyaabo badan oo yacni la arko inuu u qalmo oo turxaan bixin lagu sameeyo marka odayaasha la isugu yeeraya ee labada dhinac ee garta gudagelaya qofkan waa qof weyn oo 60 jir 70 jir keliya miyaa la eegi jiray mise qofka siduu u fikirayo dabeecadiisa qaabkuu garta u goynayo waxyaaba si hoose loo fiirin jiray miyaa jira oo garsoorayaasha laga eegi jiray garta siduu badan tahay horta odayaalka gooyaan laakiin dadka dhalinyartiikana waa dhib ay ka noqonayn waa joogayn waxaa leen waxay waa iska baranayn oo iikana dib ay u galayn laakiin markii hadda oon gartaas la goynaayo
dhiib weyn kama qaataan dhalinyarada dhiib weyn kama qaadato laakiin dadkanayda oo dhexdhexaadka oo gariid oo yani gariid aan ku magacaano 45 konton ka jir dadkaas qiib ay ka qaadanayaan laakiin waxay ka hooseeyo waa imaaday waa dhegaysanayaan laakiin qiib weyn lama siinayo odayaashan iyaga labada reer miyaa soo xulin jiray odayaalka reer soo xulna reer limaada ma jirtay qaab kale oo ka duwan qaabka aa sharaxday oo garta lagu goyn jiray mise on sidan qaabka siduu badan tahay haddii marba loo soo celiyo oo dhaqan ahaan loo soo celiyo sidaan ubaa lagu goyn jiray marka waa la iswarfariistay arrin ama dhibaato reer u geystay aa laga hadlayaa haddii arrinta siday u socotay talada sida loo wada odayaasha fadhiya ee labada reer ay ku kala qaybsamaan ama reerka fadhiya mid ka mid ah uunan ku qancin siduu wax u socdo maxaa la samayn jiray horta qof iska fidnaala badi horta waa lagu qancaa maxaa yeelay arrimaha la samaynayo waa wax adi aan shalay aan kaa qaaqadin maanta iga qaadanaysaa marka badi horta waa lagu qancaa haddii lagu qanco waayo hooskaa loo badina dad kalea loogu yeerinaa ama dad dhexdhexaad oo ku jirin oo dhexdhexaada loo yeerinaa waxay oo dembi oo isaga diidaa loo sheegaa marka hoos kale ma yani dibaa loo dhiga hoos kale la qabana waa la dherjina ilaa isaga oo yani ka qanaco dadka fariisanaya haweenka qayb ma ka ahaayeen maya haween qaybka ma aha maxaad u diideen haweenka sinaan jinsiyadeed ma jirin miya ani hadda wax muu sameeyen kari laakiin kama qiimi karaan sidii runta hadda ilaa waqti xaaladkan kama qiib galaan waa yeri aada u yeri xitaa haddii la doonayo gabar kufsi loo geystay iyo sida loogu xadgudbay inay sharaxdo odayaal unaa dhegaysan jira miya odayaal aa dhegaysana waa runta oo markii gabar lagu xadgudbo gabadhaasayta wax sheegato ka damba gabdha oo la aaminsan yaha loo dira waa la fiirina gabadhii waxay sheegatay inay run tahay iika hoos ahaan u galayn laakiin meesha gaarka ma jeedinayn waxay arkeen unbay sheegayan inkastoo odayaal reerka ka tirsan ay matalayaan laakiin labada qof ee isu gafay goobta xaajada lagu goynaya ma ku sugnaan jireen hadday ku sugnaadeen hadday ku sugnaanin waa iskuma dunan laakiin badi waa un joogaayin wax dhibi ma laheen wax dhible ma laha waan ku fahmay marka waa la fariistay odayaalaha fariistay go-aana la soo saaray kareer ahaan haddaan ku qancin racfaan ma jiray haddiiba go-aanka odayaalka gaaraan adigiina waa lagu soo helina go-aankanayta intaas aan kuga aragnee ma qaadataa la dhaha isaga naftiisa kornu nagama saarayo waa unu qaataa hadduu qaadan waayena sabab u qaadan waa sheega hadduu yani gardaro u diidayana sida haddaan kuu sheegayo hooskaa loo badina marka hadalkaada waxaa ku bilowday inuu sabeen xir jiray iyo raaligelin markii la iraaligeliyo ma qasab ahayd in loo sii gudbo in garta loo fariisto aniga haddii aan dhahay waa la ii gafay walaalkay wuu iraaligeliyey waana saamaxay meesha miyay ku dhammaan jirtay mise waxaa qasab ahayd in la fariisto haddii adiga raalli noqoto oo adiga dad cafiso iska tagto abaha kuwa dabagal ma laha laakiin sabeyntaasayda hadal ma reebtaa la dhaha oo halka markaasaa la bilaaba markaasaa la galaa laakiin haddii adiga aad iska cafiso lama diidayo taas waa laga ogolaana dabcan bulshada dhexdeeda dhibaatooyin kala duwan oo noocyo badana ka dhici jiray go-aamadan iyaga ee soo baxayo hal waara ma ahaayeen oo dhibaato kale ma ka horteegi jireen mise waa la fududaysan jiray aad iyo aad hal loo gaaray aad iyo aad loo qaadan jiray waa la qaadan jiray markii hore waqtiyaalkan hadda oga dhabaata ka jirta magaasoo aad baa loo qaadan jiray marka waa la fariistay tallaabaa laga qaadaya baa la yidhi mise ganaaxa la isaaray arrintii iyada ahayd oonan xitaa aanan dhammaanin ama wixii aanan la bixinin baan qalad kala geystay mise ficil celin kalaan sameeyey mar kale miyaa la fariisan jiray ninkii oo dhibka geystay taas dhib ma qabay mugta kii kale inuu aarsada laga yaaba mar kii kale aarsaday kii kale hadduu aarsado marka hayse haddii baasi gacan ku hadal ay tahay oo dandi dil oo kale tahay marmar faraha ka baxay oo yani waa la qaban wayna laga dabataga dawlad waxa la kaashaday iyo wax odayaalka la kaashaday waa laga dabataga laakiin marmar baa faraha ka baxaysa hadduu dil tahay dil yahay marka adiga aad dhamays ka dambaayay iyo aad ina soo laba kaclayni marka qofkii adiga aad sabeyntii u qaaday oo waxay aad yani isku xallin lahay ama boqolkii ha noqoto waxay aad ka hadasheen yaa laga yaaba marka inuu qancin oo markaasna waa qancin ku dhaho laakiin markii dambe haddana aarsado oo aarsigii haddana in badan kala keena iska dhacaysa marmar dhibaatada la ii geystay qofa i dhaawacay anna waan ficil celiyo waan dhaawacay tallaabadana laga qaaday horta odayaasha hortooda labadeennaba dembiilayaal miyaan nahen mise see loo qiimayn jiray hata wax kale iska dhaafadii nin ku caayo adigina aad caayso labadiina waa soo dhigantihin oo labadiinaba dembiilaa tihin waxaa lagaa rabaa inaad soo sheegto oo aad tirahaa ani ninkaas ba igafay dhibka ninkaas ba igaarsi aad tirahaa lagaa rabaa laakiin haddii adig gacantaada ku aarsato labadiinaba dembiilaa tihin soo markhaati looma baahna marka haddii lisin karo haddii labadii ruuxo ninkanayta saadii geysa hadduu dhaho kii kalena maya ani ma yeelin haddaas dhaho waa loo baahna marka haddii markhaati la waayo maxaa la samayn jira haddii markhaati la waayo hadalkii waa la tuura si kale la yeela ma laha masme waa la dhaarina aniga qofka waa aflagaadeeye isagana wuu ii gacan qaaday yacni tallaabadana laga qaada isku mid miya mase way kala weyn tahay haddii labadiinaba isku si aad isu jawaabtaan tallaabadii waxay idinka qaadaya waa isku mid waay labadiina sabeen aad soo xiraysiin marka odayaalka markaas sida ayka la noqotay idin yeelaya isaga wuu ii caayay anna waan daqray tusaale ama waan dhaawacay sabeenta aan bixinayna ma siman tahay horta isaga
عايد ممكن عايد جراحة ملها أيه تيسو أدومي تيسو أدومي أليسو بالواس أليسو حتى قصتين بالواس تيسي أو عايد هاد وحي نغني لعب صغيرة نغني waxyaabo badan u soo joogtay waxaa laga yaabaa inaad horay gar u gashay oo xal raadin iyo khilaaf dhacay aad xal u raadisay oo gar aad qaaday haddana waad u joogtaa waxyaabo badan ka dhacaya bulshada dhexdeeda Soomaalida dhibaatooyinka iyaga ah iyo kuwa lamid iyo kuwa laga yaab inay ka duwan yihiin horta maxaa isbedel oo ku muuqdo dhanka sida garta loo qaadayo maxaa ka qaldan maxaa ku soo kordhay waxyaalo badan oo hadda si khaldan waa jiraan maxaa yeelay hata odayaalka naftigooda ma aha dad oo yani wada daacade ma aha qaar oo gacan ba iska rabaan sidaas waaye marka arrimihii waa la jiijiida marka marmarna dawladda soo dhaxgali sidii hore oo arrinta oo yani u fiicnaan jirtay oo kale ma aha ogo hadda dhib badan baa iska jira maxaa yeelay nin baa dhalinyaro ama ninkii wax soo hadlay halkaas iska diida oo stationka iska aada marka waxyaalo waa jiraan hadda sidii hore u baahan u fiicnaan waa jiraan hadda oo caqabada waa iska tuurin yihiin marka ma waxaad leedahay odayaashii hore 100% daacaday ahaayeen oo musuqmaasuq iyo wax hoos ka tuur ma jirin ma jirin wax hoos ka tuur ma jiraan wax kale oo qaldan oo ku muuqda miyaa jira arrinta hadda aniga khalad zaad uga arka waa untaas oo odayaalka xaggooda oo yani ogo musuq iyo wax ku dhex jiraan iyo dad dhalinyaro oo markaasi go-aan loo gooyo oo ku qanaynin taasunba hadda caqabad kale saas ma jirto hadda waxaad la socotaa Kenya joogtaa oo waxaa laga hadlayaa sinaanta jinsiyadda ma isleedahay waxaa la joogaa xilligii Soomaalida garteeda ay haweenka qayb ka noqon lahaayeen aniga naftayda uma arka haween inay qayb ka noqdaan takoorkan in ka badan 100 sano taagan muxuu ahaa horta takoor ma waxa nayda aye bilaawa waa xishoonayeen xishood baa ilaahay siiyey waa xishoonayeen waxay ka dambeeyaan reegooda ay ka dambeeyaan cidda hadday joogaan dad oo si kale maaha waa dad shaqaynaya oo warshada caruur soo saaray waaye caruurta nafteeda haddii laga tago oo hooyi waayaan hadda waxay noqonayaan ogoon ay noqonayaan oo rajay noqonayaan dadna ma noqonayaan dhibkan hadda laisku wado oo bilcaan la leeyahay wax weyn aan nafteyda uma arko bilcaan waxay ku fiican tahay inay gurigeeda joogto oo caruurteeda dhaqaaleyso waxyaaba badan aad nooga sheekayso ood noo sharaxday dadka barnaamijka dhegeysanaya waxay isugu jiraan dad kula mid ah oo waayo aragnimada dhaqameed ee ka sheekeynaysa leh dad aan waxyaabahan u soo joogin oon doonayn inay wax ka bartaan arrimahan oo dhan adigoo isu geynayo dardaarankaaga ugu dambeeya muxuu yahay si gaar ah dhibaatooyinka markay dhacaan qaabka ugu wanaagsan oo isleedahay waa lagu xallin karaa dadka wax xallinaya waxyaabaha laga doonayo iyo si guud dardaaranka aad bixinayso dardaarankaydu waxa waaye horta wax ka wanaagsan odayaalka inay isu yimaadaan oo isu tanasulaan oo isxalliyaan oo heerarka hor nagu noqdo oo dhinaca diinta xaggeeda ha noqoto ama samee waxay dhaqanka hore lagu dhaqmi jira ha noqoto wax ka fiican ma laha waxaan u dardaarami lahaa dhalinyarta hataa haddii keesaska oo hadda dawladda oo la geenaayo oo maxkamada la geenaayo laalush badan iyo lacag fara badan baa ku baxaysaa laakiin annaga waxaan xallino waxay odayaalka xalliyaan waxa ku baxay ma laha cadaaladna waa yihiin gartana si fiican u qaadayn waa la helaa marka waxaan dhihi lahaa waxyaalaha areyd oo hadda maxkamadun laleeyahay oo inay kusoo noqdaan oo heerkooda hore iyo dhaqankooda hore usoo noqdaan ayaan u dardaarmi lahaa laakiin maslaxada iyadoo ammaanaysa waa la dhaliilayaa waqti xaadirkan meel horta ninka naftay u arko dhaliil waa jirta dhinaca hadda gabadha qofsooda oo kale ogoo dhaliil oo dhinaca odayaalka sidii wax lagu maamuli jiray ogoo an naftay dhaliil waa u arkaa midaas oo kale haddii maxkamadda la geeyo oo haddii naftayda wax dhib uma arko laakiin waxyaalaha kale oo hadda laba ruux isdeshiyo oo kale on ficil hadda lasii qaadqaaday markaan on lasu sabro oo geed lagu soo noqdo haddii ninkii qof dilina isagana waa bilaash laguma daynayo oo diyaas bixina hoolaas bixina marka oo lagu qaano oo ficilka lasii qaadin oo aarsida fara badan wax la iska daayo yaan u dardaarmi lahaa odayaasha kula midka ah ee hadda garta goynayood leedahay waxyaaba qaar ayaa ka qaldan talaad u haysa ma jirta odayaalka waxaan dhihi lahaa odayaalka kulli muuqda xumee qofka saas baa iska jira waxaan dhihi lahaa inay waxyaalaha oo lagu aaminay oo yani ummadooda dhaxad kala saarayeen inay daacad u ahaadaan oo u kala hiilinin oo hadda haddii midka adiga aad kula dhashay oo gardaran asaatid marmar waxaa iska dhacaysa odayaal aad arkaysa oo markii ummad si fiican isku halaawdo oo isdilihayso kulli hadda dhinac u xiilinayno arkaysa marka waxaan dhihi lahaa odayaalka haddii marba odaynimada lagu aaminay inaad xiile iyo waxaas aad ka baxdid oo waxay gartaad goysid umaan darmi lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga adaa mudan